Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Fiirsadyaal way baa ka dhawaada saana warka TV-ga warsan qodobada ka fiirsan doontaan way baan ka weena. Maamulyaalka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed way bagee ka shir hal maalmood ku furmay magaalada Baydhabo. ururka qareenada Koonfur Galbeed way bayo ku hadaleen walayo deegaanada Koonfur Galbeed ku qobadayanga. akhbaaradka banaankiisa ka fiirsan doontaan warka way baan ka weena taliye ku tirsan ciidamada Liibi oo ku bayac bad joojinta la ka dhawaaqay meelasa. fiirsadyaal way buu hamiinama talaada oo arbaanaha galahay taariikhdan iyo ka eedanta 14 bil koobaad sanadka 2020 ana soo baxayna qodobadii warka kooban hadana ka dhawaada usigi oo fisanga. maamulyaalka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed way bagee ka shir hal maalmood ku furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. waa ko Muqtaar Sheekh Aadan Dalmar oo qodoboreedkaas ninhaya. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare yasi wada jaray mayba in shir gudoomiyeen shirkiga ku dhigay xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee beledkum Baydhabo iyo oo shirkiga fidhiyaan oo kumid ah wasiirada lamada maamul wala an ku wiinay ee shirkan lamada maamul ka dhamari beledka Baydhabo lunku hadalay mayba kumid ah amniga guud ee deegaanada lamada maamul iskaalado dhaqaale ee Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle dhamara kaabayaasha dhaqaalaha iyo waliba xoojinta iyo xoogayowka hay'ado dawliga ee lamada dawlad goboleed. madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dhin fadhiyay madaxweynaha Hirshabelle qeybta hore ee shirkan ku hadalaya sheegay in shirkan uu saayay muhiimad weyn ah shacabka dawlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. wasiirada qorsheeyowka maalgaladowka iyo horumaryowka lamada dawlad goboleed Axmed Madoow Nuunow iyo Guuleed Macalin Cabdullaahi ya ku hadaleen sidii aan ku go'aantay meel maryowka ajandiyalka shirka maalinta qaadi ee lunku wada hadalay iskaalado dhaxmara lamada dawlad goboleed. arrimo amniga guud ee labada dawlad goboleed sidii la sheekaysan lahaa xasilinta labada dawlad goboleed iskaashi dhaqaale ee yeeshaan labada dawlad goboleed Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed khaasatan horumarinta beeraha horumarinta xanaanada xoolaha horumarinta kalluumaysiga iyo in oo iska kaashado kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka isku xiri lahaa labada dawlad goboleed sidii loogu dhisi lahaa labooro iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kale loo hadlay dib u heshiisiinta waxaa kale loo hadlay u helidda xal waara arrimaha barakacayaasha xoojinta hay'adaha dawliga ee labada dawlad goboleed ayaa looga hadlay. ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay EU-da arrimo amniga guud ee labada dawlad goboleed sidii la sheekaysan lahaa xasilinta labada dawlad goboleed iskaashi dhaqaale ee yeeshaan labada dawlad goboleed Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. shirkun iyo ekiilamaad ee dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ka dhamara beledka Baydhabo may baan ku wada hadaleena qodobo iskaalado annagada kor lamada dawladeed iyadoo shirkun iskaalado kankii ku horeeyay Baydhabo ku dhii 22 bili December sanadkii hore. Muqtaar Sheekh Aadan Dalmar telefishinkii raadiyaha warsan Barshawiinay Baydhabo Jinaay. ururka qareenada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed way bayo ku warbiyeen walayo deegaanada Koonfur Galbeed ku qobadayaan urursho faafaynta warkan way baninhaye. gudoomiyaha ururka abukaatiyaalka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba geega ku warbiyay walqabadka ururka abukaatiyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya walina soo koreen tilmaamay gudoomiyaha qaabkilka aas-aasi ururkan saasaatoona ku warami walyaabihii qabsoomay muddada u sajira ururka abukaatiyaalka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. marka muhiimadii horta la lahaa horta intaaso marka may kale maanaha ururkan qabsoomay anti maanaha wada shaqeyntii maxkamadihii qofka qaraanka ee ka shaqeeyay si la ogsiin maxkamado ya wada shaqeyn ya maanaha nool dhahayta guud ahaan maanaha maxkamadda gobolka maanaha Baay iyo tan degmada Baydhabo iyo maxkamadda Raafaanka gobolka Baay iyo maxkamadda gobolka Boqol iyo tan degmada Hudur iyo tan Raafaanka gobolka Boqol
iyo maxkamadda maanaha gobolka shabeellada hoose iyo tan raafaanka gobolka shabeellada hoose intaas dhan maanaha wada shaqeyn rasmi ah yaanoo la dhahayta tusaale may jiraan maanaha dad oo maanaha qaabo mararka qaar lahan qobsado oo eedeysanayaal ah maxkamado maanaha markii hore waraaqo may kasoo sii jireen maanaha sida maanaha habsiyada iyo saldhigyada kasoo sii jireen qofkaas oo kalmadi la saaro laakiin hata sida aadiga ah markii yoona dareeman intii oo iqaabo kiisaska yoo qaadayaan lanka baahanyi dad gareen ah si toos ayoona ma kasoo sii galeen maanaha xafiiska ururka qareenada koonfur galbeed toosan kasoo sii sambarka maanaha guud ahaan may baa isla fahmayoona anti kiisaska nafta iyo qaadan maxkamado iyo qaadaanba qodobka maanaha 14 nidaamka garsoorka iyo maanaha may ku sanaayay qodobada maanaha sida kiisaska oo qareen laga baahanyi yoona muddo dareeman kiisaskii hortiyo gala jareen oo qareen aan hala jarna qodobkaas oo 14 nidaamka garsoorka 1960 lamadii habaheena tilmaamo kiisaska maanaha absida daa'imka ah kiisaska 20 sano maanaha absida kuyin ganaajo kiisaska oo dilka ah kiisaska kufsiga intaas dhan maanaha mayba waajibiyay qodobkaas intii lan qareen ah ha ku qeyb qaado marka maxkamadooyona marka madi dareemen intii maanaha muhiimad ah qareenki iyana si toos ah xafiisadii maanaha ka soo galeen guud ahaan maanaha ururka qareenada maanaha barnaamijyo may qowdayaan maanaha dhinaca wacyigelinta ah iyo haqowdan guud ahaan maanaha idaacadaha FM-yada maanaha goboladan ku shaqeeyo ururka abukaatiyaalka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba aas-aasay dhalinyarada aqoon-yahanada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ujeedada lan aasaasina hayti sidii bulshada koonfur galbeed Soomaaliya yoon helan lahaayeen cadaalad rasmi ah. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, TV-ga raadiyaha Warsan, magaalada Baydhabo. warkaas ku fiirsaytan way buwa TV-ga Warsan xaruntiis magaalada Baydhabo akhbaaraadka banaanka. Warsan Media Network. tali ku tirsan ciidamada Liibiya wayba isku kubahay xabad joojintii laga dhawaaqay gudaha dalkaas Liibiya. taliga ciidamada mucaaradka dalka Liibiya Khalifa Haftar iyo ku tabi magaalada Moscow oo saxiixay heliis isku day oo la fadahay intii la sameeyo xabad joojin walwalba oo damiyawa dagaalka ku dareer gudaha dalkaas Liibiya. kuree saacado wada xaajooda oo wada qaadan Raashi Turkiga Haftar iyo fiidnimadii Isniinta wayba u socodday ilaa hiraabnimadii Talaada geeka intuusa fiiri heliiskii iyo horeen wada saxiixdeen oo ku mid hayeen madaxda dawladda iyo aqoonsanta ku dhisan qaramada midooba la wareedyo lagu heli Liibiya xaqiijihay bixitaanka Haftar yoona qayb qoraalka heliiskaas uu sadeedii iyo kuma qanyin haano badan oo ku mid ah ciidamada Liibiya ma jarta wal hormare oo ku baahi wada hadalada iyo tooska aan la haayeen kooxo la dagaalamo ama ku dagaalamo gudaha dalkaas Liibiya. guudaan fiirsadayaal warkaysan ku fiirsaasan TV-ga Warsan xaruntiis magaalada Baydhabo surunkan inkege